Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelka wararka Somali News ku soo dhawaada tabinteena habeenimo qodobada ugu waaweyn waxa qaybka dagaal qasaare xooggan geysta oo ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne iyo bandow lagu soo rogay magaalada Beledweyne. shan qodob oo ay tahay in lagu xalliyo shirka ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada berrito uga furmi doona caasimadda dalka Muqdisho. dagaal sababay dhimashada dad badan oo ka dhacay duleedka magaalada Garowe caasimadda Puntland iyo madaxda ugu sareysa Puntland oo baaqi soo saaray. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo iscasilay iyo sababta ka dambeysay iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta gareen oo mas'uuliyiin ka socda Mareykanka iyo Ingiriiska kala hadlay doorashooyinka dalka ka socda haatan. qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena u diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulan wacan oo wanaagsan oo ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno. haddii aynu ku hormarno gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxaa dagaal xooggan uu ku dhexmaray duleedkeeda ciidamo ka tirsan maamulka Hiirshabelle iyo kuwa taabacsan sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha haatan ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle. dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada Hiirshabelle oo kaashanaya kuwa dowladda gaar ahaan qaybta 27 ee xoogga dalka ay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidamada sargaalkaasi ka sameysteen duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada, waxaana halkaasi ka dhashay iska horimaadkaasi qasaare xooggan oo sababay dagaalkaasi. maamulka gobolka Hiiraan ee Hiirshabelle ayaana banda ku soo rogay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida Goorrow Shacaya afhayeenka maamulkaasi. afhayeenka oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay sababta keenta bandowga lagu soo rogay magaalada ay tahay in laga hortago wax walba oo keeni kara qalqalgelinta ammaanka magaalada Beledweyne oo horey gudoomiyaha gobolkaasi uga digay. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeste Cismaan ayuu afhayeenka tilmaamay inuu faray laamaha amniga dowladda federaalka iyo kuwa Hiirshabelle inay dhaqan geliyaan bandowga lagu soo rogay si loo xaqiijiyo amniga isla markaana laga hortago falalka amni darro muddooyinkii dambe ku soo batay. Beledweyne waxaa habeen ka hor dagaal xooggan oo dhaliya qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo kan maanta ay ka kala dhaceen waxa kaas oo u dhaxeeya ciidamo watay sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere, waxaana dagaalkaasi la xaqiijiyay inay ku dhinteen habeen ka hor 5 ruux, maantana waxa uu sababay dhimashada iyo dhaawac kale walow aan si dhab loo xaqiijin. bandowga magaalada Beledweyne ay ku soo rogeen maamulka Beledweynaha ayaa ku soo aadaya xilli gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah maleeshiyaadka hubeysan loo ka soo horjeeda maamulka Hiirshabelle laga baadi goobo magaaladaasi. madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaaw waxay caqabad weyn ku ahayd magaalada Beledweyne oo tan iyo doorashadiisii aysan ka degin maadaama maleeshiyaad ay kala hogaaminayeen saraakiil sarsare oo qayb ka ah Generaal Xuud u diideen inuu yimaado magaalada Beledweyne. lama oga sida ay maamulka gobolka Hiiraan uga guuleysan doonaan ciidamadan hubeysan oo maleeshiya beeleed camal ah walow ay kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay garab xooggan ka helayaan. magaalada Beledweyne dhankeeda waxay haatan isku diyaarinaysaa doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo deegaan doorashada Hiirshabelle magaalada labaad ay tahay. falalkan iyo dagaaladan ciidamada u dhaxeeyana hayaana maalmihii dambe caqabad weyn ku noqday amniga magaaladaasi, taasoo maamulka gobolka Hiiraan ay tiro dhowr jeer ka digeen. 5 qodob ayay tahay in lagu xalliyo shirka Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka kaas oo looga arinsanayo khilaafka doorashooyinka haatan hareeyay. golaha wadatashiga qaranka ayaa saacadaha soo socda kulan ku yeelan doona magaalada Muqdisho caasimadda dalka kadib afgambigii oo hormuud ku ahaa farmaajo oo dhacay toddobaadkii hore. dhammaanba madaxda maamul goboleedyada dalka, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor, madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku sugan magaalada Muqdisho iyagoona ajiibay codsiga ra'iisul wasaare Rooble oo ahaa in shir wadatashiyo la isugu yimaado. qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo maalmisii joogay magaalada ayaa la kulmay ergada xogayaha guud ee qaramada midoobay safiiro ka kala socda beesha caalamka kuwaas ugu horeeyeen Mareykanka iyo Ingiriiska. shirka madaxda dowlad goboleedyada 5 qodob ayaa inta badan xoogga lagu saari doonaa kaasoo midka ugu horeeyay yahay saxidda habraacyada, waxaana jira xilligan cabasho badan oo ka jirta dhanka habraaca doorashooyinka iyadoona gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada xitaa madaxda dowlad goboleedyada ay ku meel dhac weyn uga gaareen habraacyada xulista ergada iyo sidoo kale doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka, waxaana soo baxaya kiisas badan ee ku saabsan hab istabamarsiina ee gudiyada ay ku kaceen ee dowlad goboleedyada qaar. qodobka labaad ayaa xulista ergada waa caqabad kale oo ay tahay xilligan in wax laga qabto loogana hadlo shirka maadaama arrinta badan ee mugdiga gelinaysa ay tahay inta badan ergooyinka inaan la shaacin
taasi u dheer tahay inaan wejiyadooda la arag. Qodobka saddexaad ayaa ah sareynta saameynta madaxda dowlad goboleedyada. Aqalka sare ilaa hadda oo lagu guda jiro golaha shacabka waxaa meesha ka baxday inay dhacdo doorasho kaliya, waxaana ku soo baxay cidda ay xushaan maamul goboleedyada iyadoo gacanta ay ku hayso guud ahaanba doorashada madaxda dowlad goboleedyada. Qodobka afaraad waa dhinaca gudiyada doorashooyinka. Doorashada waxay meesha ka saartay kaalintii guddiga heer federaal, taasoo la awoodsiiyo gudiyada dowlad goboleedyada maadaama ay ku yimaadeen xulusta madaxda dowlad goboleedyada. Taas ayaana keentay inuu khilaaf xooggan uu soo kala dhex galo. Qodobka shanaad ayaa ah jadwal cusub ee doorashada loo sameeyo. Waxaa in ka badan 4 jeer lagu guuldareystay jadwalka doorashada, waxaana kulankan uu noqon karaa mid lagu jaangooyo jadwalka doorasho oo lagu hubinayo xilliga lagu soo gabagabay doono laguna dhaarin doono xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Guddoon la dooran doono isla markaana ay noqon doonto doorashada midda madaxweyne ee xigta. Maalinta berri ayuu qorshahayaa in shirka golaha wadatashiga qaranka u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho ku sugan iyo ra'iisul wasaare Roble uu ka furmo magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegay in gabagabada shirka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka qayb gali doonaan walow aan si dhab loo ogeyn. Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa waqti doorashada oo muddadeedii ka daahday, taas oo caqabado badan xilligan ay ku gadaaman yihiin, waxaana jira cabashooyin badan oo hareeya doorashada iyo khilaaf siyaasadeed oo marba soo shacbaxayo. Markaana Puntland, dagaal khasaare geysta oo dad badan ay ku dhinteen ayaa ka socda caasimadda Puntland ee Garowe duleedkeeda. Waxaa maanta dagaal culus uu ka qarxay duleedka magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ee gobolka Nugaal, kaas oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega. Sida aynu xogta ku helnay, dagaalka ayaa waxa uu xoogiisa ka dhacay tuulada Saaxmigaag, waxaana xiisadan ay ku saleysan tahay deegaanka u dhaxeeya degmada Boocame ee gobolka Sool iyo tuulada Birta Dheer ee gobolka Nugaal. Khasaaraha dagaalkan ilaa hadda lama xaqiijin oo ilaa shalay la xog ogaaliyaha xaqiijiyeen inuu ka socday halkaasi, balse dhaawaca in ka badan 15 qof ayaa lagu waramay inay jiraan. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xal rasmi ah laga gaari waayay isku qabsiga beelaha halka dega ee dhulkaasi, taas oo keentay inuu dagaal xooggan iyo colaad muddooyin badan halkaasi ka jirto oo dad badan oo shacab ay ku barakacaan ay ugu dambeyntii sababtay. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka hadla dagaalka u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed ee saacadihii la soo dhaafay ka dhacay tuulada Saaxmigaag ee gobolka Sool, halkaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaankaasi waxa uu ugu baaqay inay dagaalka si shuruud la'aan u joojiyaan, isla markaana wax kasta oo ay kala tabanayaan wada hadal lagu dhammayn doono. Colaadda ka soo cusboonaatay deegaankaasna ku amray ciidamada saraakiisha qaybahooda kala duwan inay ka qayb qaataan sidii loo dami lahaa. Axmed Karaash ayaa tacsi u diray qoysaskii dadkooda ku geeriyoodeen dagaalkaasi, kuwii ku dhaawacmana alla uga barya caafimaad taam inuu siiyo, isagoona labada dhinac ka dalban in dagaalka la joojiyo laguna wada hadlo waxa murana ee jiro. Waxgaradka, isimada iyo culimada ayuu madaxweynaha ku-xigeenka Puntland ugu baaqay inay kala dhex galaan beelaha walaalaha ee colaadda ku dhex martay, isla markaana xusay in maamulku uu diyaar u yahay sidii uga qayb qaadan lahaa joojinta dagaalkaasi. Dagaalka oo sababay dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca dad badan ayaana maalmihii dambe xiisadiisa halkaa ka taagneed oo ugu dambeyntii maantay oo qarxay, iyadoona shalay ay jirtay israasaaseyn dhinacyada dhex martay. Dagaalka labada dhinac ee beelaha halkaa ku dagaalamay oo ku saabsan arrimo la xiriira muran dhulka ah ayaana muddo dhowr jeer soo noqnoqday. ugu dambeyntiina madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa mas'uuliyiin ka socda Mareykanka iyo Ingiriiska kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay safiirada dowladaha Ingiriiska iyo siyahayaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Madaxweynaha iyo safiirada kulankooda waxaa sidoo kale ka qayb mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Safiirada ayaana madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay kaga mahad celiyeen sidoo u bilaabay doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka, iyagoona ku booriyay inuu dardar geliyo inta harsan haatan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ayaa Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka oo looga hadlayo caqabadaha haatan hareeya doorashooyinka dalka ka socdo. Laftagareen ayaa ugu warbixiyay dhinacooda mas'uuliyiinta ka kala socday Ingiriiska, dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka habka ay doorashada dalka u socoto si gaar ah deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama dhawaan ay Koonfur Galbeed ku dhawaaqday in 11 kuraas oo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ah ay bilaabi doonaan. Waxay sidoo kale Laftagareen iyo mas'uuliyiinta kale ee ka socotay dowladda iyo Koonfur Galbeedba ay kala hadleen dhinacyadan ka socda dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska arrimaha abaaraha ee xilligan dalka ka taagan, si gaar ah deegaanada Koonfur Galbeed iyo xaaladaha amniga ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada intooda badan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, inta ay joogeenna waxay kulamo la kala qaateen mas'uuliyiin ka socday dowladaha shisheeye iyo sidoo kale madaxda dalka iyo siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho. Inta ayaana kusoo gabagabanaynaa barnaamij wareedkeena aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News.
waxaan kaga mahad celinaynaa daawashada muuqaalkan. Fadlan hadduu ku soo gaaro si share gareeyo saaxiibadaada kale la sii wadaag. Mahadsanidin.